مشروع فidinta iyo hanaanka maamulka beeraha mashruucu waa mashruuc madax banaan ku dhisan xeer madaxweyne sharcigiisana la yiraahdo sharci lambartigeed soona baxay bishii December 1980 wuxuu ka mid yahay mashaariicda waaweyn ee wadanka ka jira darajadiisuna waa darajada koowaad mashruucu rasmi ahaan wuxuu bilowday bishii August 1980 hase yeeshee hawshiisa rasmiga ahayd ee xagga beeraha waxay hirgashay bilowgii 1981 halkaasoo hawshiisu ay ku bilaabantay guga sanadka una gudbinta aqoontiisa iyo farsamada beeraha uu u qorsheeyay 25,000 qoys beerada maanta mashruucu wuxuu taagan yahay inuu aqoontiisa u gudbiyay si rasmi ah u gudbiyay 170,000 qoys beeralay qorshaha guud ee 7 sano waxa weeye in mashruuca aqoonta farsamada iyo cilmiga casriga uu gudbiyo 195,000 qoys beeralay baaxad dhuleed ee gaaraysa 220,000 hektar kuna faafsan 10 gobol oo ah gobolada beereed iyo 57 degmo oo ah degmooyinka beereed waxaa halkaa ka muuqata in aanu cilmigii iyo aqoonta mashruucu u xilsaaran yahay inuu u gudbiyo beeralayda dalka inuu meel fiican halkaa ka marayo durbadiiba aad moodo in 5 sano inuu ku soo koobay tiradii 170,000 20,000 oo hartayna lagu dhamayn doono hadduu eebbe idmo 2 xilli oo ah 186 hadduu eebbe idmo mashruuca fidintu hawlihiisa wuxuu u adeegsadaa 8 sidiyo gobol oo gobolada fadhiya 26 sidiyo degmo iyo 185 sidiyo qaabka gudbinta aqoonta uu adeegsado waxa weeye qaabka la yiraahdo training and visit T&V tababar iyo kormeer qaabkiisu marka wuxuu u gudbaa aqoonta u gudbinayo waxa weeye tababar tusaale iyo kormeer fidiyo walba wuxuu aqoontiisa gaarsiiyaa 500 oo qoys beeralay 500 oo qoys beeralay waxaa loo qaybiyaa 8 qaybood 8 qaybood qaybtiiba waxaa laga soo xulaa 6 xiriiriyaal sida ayay xiriyaashu waxay ku noqonayaan 48 xiriiriyo walbana asaga ayaa loo isticmaalaya inuu aqoonta u gudbiyo beeralayda asaga ay kaga daydaanin maxay kaga dayanayaan tusaalaha lagu dhigayo beerta xiriiriya tusaalaha lagu dhigayo ayay kaga dayanayaan waxay kaga dayanayaan kulanka fidiyuhu samaynayo ama oo ah kulan kooxeed iyo kulan gaar ahaaneed intaba fidiyuhu markaa wuxuu habaynayaa beerta tusaale ee xiriiriyaha ayuu wuxuu ku habaynayaa farsamadii cusbayd ee la doonayay ama lagu talinayay inay beeralaydu qaataan kadibna waxaa dhacaysa dalaggu markii uu go'o
in beeralaydo dhan ay isugu yimaadaan in halkaas oo la isku eego dalagga loo raacay cilmiga casriga ah iyo dalagii aan loo raacin oo sidii qaabkii horeeto lagu beeray halkaas ayay markaa beeralaydii kaga abuurantay dhaganuglaan ay ku raacaanin talooyinka fidiya daraasadaas la sameeyey xilligii horeeto waxaa ka soo baxday in gobolka Shabeellada hoose galaydu gaadhay 32 ilaa 36 kintaal hektarkii gobolka Shabeellada dhexe waxaa ka soo baxday 22 ilaa 24 kintaal hektarkii gobolka Baay oo laga isticmaalo masagadana waxaa ka soo baxday 9 ilaa 12 kintaal halka waxaad garan karaysaa in aad iyo aad horumar weyn la gaaray maadaama waagii horeeto galaydana aan la dhaafi jirin 8 kintaal masagadana aan la dhaafi jirin 2 ilaa 3 kintaal in mashruuca kani yahay mashruuc aqooneed mashruuc yani ku habaysan gudbinta aqoonta iyo fahamsiinta beeralayda cilmiga casriga ah cilmigaasoo gaarsiinaya inay yani beertoodaas dalag fiican ku beeraanin ama fiican ka helaan nooc wanaagsan ay ka helaanin sidaana noloshoodii qoys ahaaneed ama noloshii beeralay ay sidaa kor ugu kacdo guud ahaanna dhaqaalaha qaranku uu sidaa kor ugu kaco daawadayaal barnaamijkeennii dhaqaalaha oo aanu caawa ku soo qaadanay howlaha mashruuca fulinta beeraha oo hoos yimaada wasaaradda beeraha waa naga intaan dib dambe u kulmayno waa soo diyaariyaha barnaamijka Salaad Fiidow soo saare Abuukar Xasan Macalin filim qaade Cumar Cabdalla Cali farsamayaqaan Suufi iyo anigoo idin leh kulanti dambe oo wacan كوريا تحوق شقية لي حرفت عليه